munaasabad lagu sagootinayay xulka kubada cagta ee gobolka Sanaag isla markaana shahaado sharaf lagu gudoonsiiyay tababaraha kooxda kubada cagta ee gobolka ayaa lagu qabtay Hlkan shirarka muhuraan ee magaalada ceerigaabo. munaasabadan oo ay soo qaban qaabisay ururka wadaniga ee aasaas ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada ceerigaabo, madaxda jaamacadda Sanaag University iyo madaxda iyo mas'uuliyiinta ururka aasaas xulka kubada cagta iyo marti sharaf kale. waxaana ugu horeynba madashaasi ka hadlay sanka deerigaado ku hadlayay afka hay'adda wadaniga ee aasaas ee munaasabadaasi soo qaban qaabisay. waxaan ahayd in lagu sii sagootiyo sagootintaas waxa noogu laran oo hay'addan aasaas ay soo qaban qaabisay waxa weeyaan mahadcelin in loo mahadceliyo macalinka gobolka ku cusub ustaad Cabdixakiin Maxamed Xasan. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xildhibaan jaamac Jibriil jaamac iyo xildhibaan Qamar Maxamed Saalax oo si isku mid ah fariin ugu diray xukuumadda Somaliland carabkana ku dhiftay in gees kasta gobolku ka dambeeyo gobolada kale ee dalka, sidoo kalena qurba joogta gobolka eedayn kulul dhalada u saaray sheegana inay ka gaabiyeen kaalintay gobolka ku lahaayeen. qolada kuraasida fadhida Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa haweenkii iyo geelaba waa la hidda raaca. war gobolka Sanaag maxaa lagu ilaabay gobolka Sanaag wasiirka ciyaaraha cali saciid reegay markuu wasiirka noqday uu ka yara gaabiyay gaabo uu leeyahay shaqayn jiray laakiin reer barco noqday sportska horta haba kama aqoon waa nin baacishaluska ahaa in badan uu gobolka cali ku soo wareegay oo cod iyo kulliyan loo codeynayo waxaasan de ku heshiisay ciyaari hal loo codeeyo cali oo saaxiib. sidoo kalena xubno tiro badan oo isugu jira aqoon-yahano iyo mas'uuliyiin oo dhammaantoodba halkaasi ka hadlay ayaa xulka gobolka ugu duceeyay inay ciyaaraha gobolada ka soo hooyaan guul wax ku ool ah. isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Sanaag Madar Ducaale Jabuuti oo halkaasi ka hadlaya isaguna dhinaciisa wacad ku maray in xulka gobolku sanadkan looga caraabi doono koobka kubadda cagta ay ku hirdamayaan gobolada badani. gabagabadii munaasabadaasina waxaa soo afmeeray gudoomiyaha gobolka Axmed Maxamuud Geelle Dacar oo dhayda ka cadeeyay in maamulka gobolku hiil iyo hoob la garab taagan yahay xulka gobolka. gudoomiyaha gobolka Sanaag hogaaminaya madaxwa lider baa ku maray inaan ka hareyn ilaa la joogiyo bilow la dhamad. intaasi kadibna waxaa hay'adda aasaas shahaado sharaf gudoonsiisay tababaraha kooxda kubada cagta ee gobolka Cabdixakiin Maxamed Xasan.